waa applicationka ugu qatarsan ee iminka applicationada idin sheegi doono. waa app cusub oo anu mar dhawaan bartay laakiin wax badan baan ka faa'iiday. 5 application oo aan anigu si joogto ah u isticmaalo kuwaasoo nolosheeda wax badan ka bedelay. applicationadan waxaa laga yaabaa adigana haddii aad isticmaasho in wax badan ka faa'iidaysato marka isku day muuqaalka inaad dhammaysato oo aad aragto. haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad like noo saarto sidoo kalena asxaabtaada la wadaagto. haddii aad ku cusubtahay platformskeenana waxaan kugu dhiirigelinayaa marka inaad nagu soo biirto waxyaabo badan baa naga faa'iidaysan doontaa. sida caadiga waxaa la sheegaa Play Store iyo App Store oo ah marka storada ugu waaweyn ee applicationada lagu kaydiyo in midkiiba ay ku jiraan in ka badan 2 milyan oo applicationada marka la isku daro ilaa 5 milyan oo application bay gaaraan. waxaan doonayaa muuqaalkan inaad ila wadaago marka 5 application ee ugu qiimaha badan ee anigu sida joogto ah u isticmaalo. maybe waxa laga applicationada inaad hore u isticmaashay ama inaad ka faa'iidaysato marka soo dhawaada. applicationka koowaad ee ila wadaago doon waxaa la yiraahdaa Google Calendar. Google Calendar waxa weeye applicationka ugu muhiimsan ee marka aan mobilkayga ku jiro oo aan sida joogtada u isticmaalo. Google Calendar wuxuu ka caawinayaa marka in qorshayaashaada aad ku qorato kelima ah maanta waxa qabanaysa waxa ku qoran doontaa bari wixii ku yaalay saa dambe isbuucan bishan waxa ku yaalo dhanba ku qoranaysa duulaha ku gaarsiiyo. wuxuuna marka ka dhigayaa qof mar walba waqtigiisa ilaaliya oo marka wax walba qabanaya hal talaab ka horeeya. waxaa noqon doonta qof marka balamaha uu galo sida sax uga soo baxo oo marka waqtigiisa ku xisaabtamo. marka application aad u wanaagsan waa bilaash weeye. sidoo kale haddii aad u fiirsato mobilada inta badan mobil kasta wuu la socdaa si automatic ah lagu soo shubaa ma u baahan xataa ku shubatid. marka isticmaal oo ka faa'iidaysta. applicationka labaad waxaa la yiraahdaa Todoist. Todoist waxa weeye application isagana sida Google Calendar oo kale waqti lagu maamulo. waxaa loogu talagalay marka to-do listiska ama waxyaabaha qofka uu qabanayo liiska u yaala inuu ku qorto. haddaba calendarka iyo to-do list waxay ku kala duwan yihiin. to-do listiska waxaa loogu talagalay waxyaabaha yaryar qofka uu qabanayo inuusan ilaabin inuu ku qorto. laakiin wixii calendarka kugu yaala in xagana ku sii qoran kartid wax yar oo qaban labtin ku sii qoratid waxa soo iibsanatid ku qoratid. marka kan wuxuu ka dhigaa qof aan ilaabin wuxuu qabanayo. qof baa ku sheegay waxa ay sameeyo ku qoran kartaa adiga maanta waxa laga 20 shay inaad ku qortid. sidoo kale to-do list-yada ma qasab ma qofka inuu dhamaystiro wax ku qoran laakiin xusuusin ahaan baa loo isticmaalaa. waxayna ka caawinayaan marka wax kasta qofka uu qorto inuu sida sax ah u qabto ama uusan ilaabin. marka isagana waxa weeye wax muhiim ah qofka gacanta inuu ku haysto soo waraaq waa isticmaal kartaa inaad ku qortid. laakiin kan waxa wanaagsan computerka ama applicationka isaga wuxuu ku fiican yahay notification buu ku siinayaa waxyaabo badan oo dheeraad buu leeyahay. xitaa to-do list waxyaabaha aan ku sii doorto waxa kamid ah projects buu ku sameeynaa in aad samaysan kartid 5 project oo free baa la socdo qaybta freega. soo 5 project 5 shaqo ama family wixii ku saabsan waxa uu sameyn kartaa project shaqada wixii ku saabsan project marka sabab ku kala qaybsan kartaa. soo isagana waxa lagu talagalay waxyaabaha dhadhow qofku uu qabanayo inuu ku qorto aad iyo aad ku caawin doona wax kasto marka aad ugu talagasho haduu ilaahay yiraahdo si sax ah u qabsan doontaa. applicationka saddexaad maalin dhow muuqaalka ka sameeyo waxa la Quraan Tafsira. Quraan Tafsira application aad u fiican qofka doonaya marka Quraanka inuu fahmo ama si joogto ah u akhriyo uu wanaagsan inuu ku shubto. wuxuu ka caawinayaa marka Quraanka inaa arki kartid tafsiirkiisa oo qoran isagoo cod ah sheekh Soomaaliga ku jira maalin dhow muuqaalka sameeyay waa very fantastic. marka qofka maalin walba waa muhiim Quraanka inaa akhrisid. marka applicationkaas wuxuu dheeriyaa Quraanka kitaabka laga aqriyo ama applicationada kale inaa heli kartid marka sharaxaad dheeraad ku saabsan oo markasta jeebka uu kugu jiro. marka application wanaagsan oo isagana ku shubta aad baan kugu dhiirigelinaya. applicationka afraad waa applicationka ugu qatarsan ee iminka applicationada idin sheegi doono. waa app cusub oo anu mar dhawaan bartay laakiin wax badan baan ka faa'iiday. appkan waxaa la yiraahdaa Gemini. Gemini waa taqaanaa waa AI Google leedahay asagoo application buu jira mobilka ku shuban kartid. haddii waliba mobilka Android uu yahay aad buu ku anfacaya applicationkan. Gemini waxyaabay kaga duwan tahay ayada kala waxa kamid ah ecosystemka waxyaabo badan oo kala duwan bay ku qaban kartaa. Google markuu leeyahay waxay ka sii caawinaysaa. Gemini waxa ku xiriirsan kartaa calendarkaaga si marka uu ogaado shaqooyinka ku yaala. waxa ku xiran kartaa in aad Google Drive-kaaga ku xiriirsato sawiradaada muuqaalada backup-kaaga ku shubato. waxa ku xiran kartaa Gmail-kaaga soo Gmail-ada kugu qoro Google Documents-ka. waxa weeye waa AI qaabka ugu fiican aad u isticmaali kartid waa inaad Gemini isticmaashaa. waxyaabo kale oo dheeraadka Gemini waxa kamid ah mobilkaaga inaad ka dhigin karto assistant sida Siri oo kale. isaga wuxuu ku ogolaanayaa inaad la hadli kartid dhigi kartid email i qor maxaa shaqo i yaala. wuxuu sameeyaa marka AI-na way uu ka aqli badan yahay assistantada hore si wuxuu u shaqeynaa fantastic. marka tusaale baan doonaa inaan siiyo waxaan rabaa Gemini inaan weydiiyo shaqooyinka ama tasks-ka igu jira calendarkayga xilligan la joogo. soo iminka habeen baan duubaya muuqaalka waxa laga yaabaa dhowr shaqo oo fudud inay yaalaan xilli dambe weyn. marka waan weydiinayna wuu inoo sheegi doonaa marka shaqooyinka hadii noo yaala markaas la eegno. What's on my calendar? You have 3 events later today. marka uu sheegay inta shaqo ku yaala. marka Gemini waa cajiib weeye. Android isticmaalaysid waa application wanaagsan
وانا all in one sawirada ku generate garay kartaa waa AI su'aalaha weydiin kartaa si ChatGPT oo kale marka waxa weeye isaga waa all in one waxyaabo ugu faysan kartaa marka aad baan ku dhiirigelinayaa haddii ChatGPT isticmaasho isku daka inaad tijaabiso waxaan hubaa in asaga u soo buuri doonto application-kan shanaad ee aan si joogto u isticmaalo application aan hubo qofkan daawanaya inuu isticmaalo dadka dhan badankooda ugu wada jira waa WhatsApp so WhatsApp-ka inta badan waxaan u isticmaalaa communication-ka hadday noqoto shaqo hadday noqoto family asxaab so isaga waxa weeye all in one so waana application-ka ugu fiican oo qofku isticmaali karo si marka communication fiican uu la yeesho asxaabtiisa family-kiisa shaqadeed tahay group loo sameeyo waad garanaysaa WhatsApp mid kala hadlayo waxaan doonayaa muuqaalkan inaan ku daro hal application oo bonus ah oo aan aad u isticmaalo so application-ka waxaa yiraahdaa Reddit so Reddit in badan oo horan waa ka hadlay asaga waxa uu isticmaalaa information hadda doonaysa xog in ay hesho caalamka Reddit isticmaalo waxa ka heli kartaa marka wararkii u dambeeyay teknolojiyadda so wuxuu leeyahay groups la galo ama waxa dhigi kartaa popular na dowladda wixii u dambeeyay inuu ku soo saaro waa very fantastic so Reddit ku shubta tijaabiye iskuna day inaad ka qayb qaadataan marka community-ga waxba ku post garay kartaa ka jawaabi kartaa dad baa iska baran kartaa waa very fantastic application aadna u isticmaalin kastoo waqti badan oo iga lumiyo ma badsado laakiin badanka markaan doonayo inaan iska galo internet-ka isaga aad u isticmaalaa oo hadda post-ki Facebook uu buuxiso Facebook inta badan ma u badnaa hadda inaan soo galiyo maane aad u ma isticmaalo waxaan jeclahay muuqaalka wax badan ka faa'iidaysteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.